madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaya sidii uu u sii deyn lahaa maxaabiista maamulka Soomaaliland laga qabsaday ee ku xidhxidhan magaalada Laascaanood. Hadda ka hor waxa uu ku guuleystay in uu sii daayo 25 maxbuus isagoo oo soo maray jidka ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Mr. Xamse. Iminkana waxa uu si hordhaca u sheegay isagoo oo ku soo foolay magaalada Laascaanood in uu doonayo in dhammaan maxaabiista ku xidhan magaalada Laascaanood si shuruud la'aan loo sii daayo, isagoo oo waliba ku baaqay in gabdha loo guuriyo, iyadoo ay la yaab noqotay hadalkaasi. Madaxweynaha oo iska indhatiray dhibaatadii dambiilayaashaasi ay geysteen halkaas oo ay ku dileen dad 600 oo qof ka badan, kumanaanna ay ku dhaawaceen, 40% magaalada ay dumiyeen. 15 sannadood ee la soo dhaafay ee ay maamulayeen magaalada Laascaanood, maamulka Soomaaliland waxa ay dhibaato aad u badan u geysteen shacabkii halkaasi ku dhaqnaa. Bal dhageyso madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ka dalbanaya maamulka waqooyi bari si shuruud la'aan inuu ku sii daayo maxaabiista magaalada Laascaanood ku xidhxidhan. maasantahay xildhibaan, waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee waqooyi maamulka cusub ee waqooyi bari oo ku guuleystay inay dhistaan dowlad goboleed ku timiday rabitaanka shacbiga, dib u heshiisiintooda iyo isu tanaasulkooda. waxaanan ugu baaqayaa maamulkaasi curdanka ah inuu ahmiyad siiyo sugidda amniga, xoojinta dib u heshiisiinta maamulada deriska la'ah iyo fidinta adeegyada bulshada deegaanka baahida weyn ay u qabtay muddada dheer. dhismaha maamulka waqooyi bari kama dhigna inay kala maarmeen deegaanada deriska la'ah. dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay geed dheer iyo geed gaaban u kori doontaa wax kasta oo fududaynaya wada shaqaynta iyo nabad ku wada noolaanshaha deegaanadaas iyo kuwa deriska la'ah ee horeyba u ahaa wiil iyo waalid, xigto iyo xigaalo aan kala go'i karin marna. waxaan ugu baaqaynaa walaalaha inay u guntadaan nabadda, xaqiijinta amniga fududayn kara isu socodka dadka iyo ganacsiga si guud ahaan nolosha dadka wax looga bedelo. walaalayaal, ka mid ma aha dhaqanka suuban ee Soomaalida ay leedahay in maxaabiis la kala haysto, balse waxaa dhaqan ah ragga dagaalka lagu qabto in la marasheeyo oo qaarkood loo guuriyo oo iyagoo dareemaya in la karaameeyey ay dib ugu noqdaan reerahoodii iyo deegaanadoodii, taas oo keeni jirtay raggaasi inay noqdaan danjirayaal nabadeed oo u dhaxeeya deegaanada. waxaan leenahay walaalaha inay xusuustaan aan rabnaa mahmaadii ahayd xasuustaa ma xiriirsho, ee aan diiradda saarno berri oo yaynaan ku habsaamin shalay iyo wixii dhacay oo aanan soo celi karin. haddaba waxaad moodaa dowladda federaalka Soomaaliya in ay maamulkan cusub ee waqooyi bari ay kaga faa'iideysanayso baahiyaha duruufaha iyo waqtiga ku xeeran, iyadoo oo markii horena 25 maxbuus lagaga sii daayay shuruud la'aan, iyadoo xilliga ra'iisul wasaaruhu soo booqday uu horey u sii kaxaystay. iyadoo dhanka kale maamulka Soomaaliland aanay awood u lahayn dowladda Soomaaliya inay wax maxaabiista ka soo deyso. haddana madaxweynaha Xasan Sheikh Maxamuud oo la filay inuu Laascaanood yimaado ayaa si hordhaca waxa uu tilmaamay in uu doonayo una bandhigi doono deegaankaas marka uu tago in ay shuruud la'aan ku sii daayaan maxaabiista maamulka Soomaaliland magaalada Laascaanood kaga xidhxidhan ee lagu qabtay dagaalkii 2023. waynu eegi doonaa waxa uu ku jawaabo maamulka waqooyi bari iyo sida uu yeelo madaxweynihii dhawaan la doortay ee Firdhiye.